xildhibaan maxamed cumar ciimoy oo madax xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inuu u taagan yahay qabashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya. xildhibaan maxamed cumar ciimoy ayaa sheegay in markuu xiriyo waxyaabo badan oo soo baxday in isku soo sharaxo xilkan isla markaana uu leeyahay aqoontiisa kana soo bixi karo. sidoo kale xildhibaan maxamed cumar ciimoy ayaa sheegay in xildhibaanada kale ugu baaqayo inay ku garab siiyaan sidii uu xilkan ugu guuleysan lahaa isla markaana uu ku rajo weyn yahay in wax badan ka qaban doono arrimaha taagan. waxaan go'aansaday kadib maadaama uu furmay kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in aan ahay musharax u tartamaya doonaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya baarlamaanka 11aad ayaa waxaan ka mid ahay dadka xildhibaanada isu soo istaagay u sharaxan sadarteed shirkiga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay in aan iclaamiyo amaba aan shaaciyo inaan ka mid ahay tartamayaasha u tartamaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. ujeedada ugu kaliftayna waxay tahay maadaama wax badan aan ku soo jiray waayo arkan aan u ahay siyaasad go'aan aan u ahay in maanta laga gudbo isqabqabsiga siyaasadeed gudoonka dhexdiisa saanigoo rajeynaya hadduu Allah wada ogolaado taas in loogu gudbi karo in lagu dhaqmo sharciga dastuurka noo degsan iyo xeer hoosaadkii baarlamaanka iyo habraaci loo sameeyay. sadarteed waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta leh meel kasta ay joogaan state kasta ay ka yimaadeen maanta waa xildhibaan qaran waa hal xildhibaan ay yihiin. waxaan isleeyahay arintan in aan wax ka qaban kara waxna toosin kara ayaan ugu hamisay oo hamigaas igalay waxaana ka rabaa in garab buuxdo ay ugu siiyaan si aan meeshaasi waxtar ayagoo waliba fikirkooda iyo taladooda iyo mas'aadooda ku shaqeynayo wada tashigooda wax walibana in oo sharciga laga sareysiyo qof kasta sareeyo sharciga ka sareeya in sharcigaasi oo aan ku sheegno sharci waa sharciga alla kitaabka munazalka waaye laakiin dastuurkan noo yaala waa heshiis bulsho waaye. dastuurka noo yaala ee degsan iyo xeer hoosaadka baarlamaanka haddii uu sida uu yahay aan ugu dhaqano waxaan jeclahay inaan isqabqabsanayna iskan hor iimaanayna waxaan soo istaagay oo aan danaynayna waxa ay tahay in maanta aan ku dhaqano waxaan aan ku heshiinay oo aan degsanay oo meesha uu ka baxo isqabsashadii iyo iskarimaadkii gudoonka dhexdiisa ahaa iyo wixii sharciga aan xoogaa la balmarayo in sharciga ku dul shaqeyno oo noo degsan inuu ku heshiinay baarlamaanka xeer hoosaadkiisa ayaa aniga aan ku shaqeyn doonaa hadduu Allah wada ogolaado. sadarteed waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad waxaan maanta u taaganahay musharax gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. wabillahi tawfiiq. maxamed axmed mursal, warbaahinta qaran media, magaalada Muqdisho. ku soo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye. waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. iyo weliba tifiyada Soomaalida dhammaantood. ka soo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet. rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena. caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilkaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay.